wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa sheegay in aanay dowladda Shiinuhu u yeedhin karin dalkiisa cidda ay la yeelanayaan xiriir diblomaasiyadeed maadaama oo jamhuuriyadda Somaliland tahay dal madax bannaan. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo ku guda jira booqasho rasmi ah oo wafdi uu hogaaminayay ay ku tageen dalka Taiwan waxa uu jawaab ka bixiyay dowladda Shiinaha oo naqdiday socdaalka ay ku tageen magaalada Taipei ee dalka Taiwan. warbixin lagu qoray wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in wasiir Dr. Ciise Kayd Maxamuud cadeeyay in Somaliland ay dal ahaan dhalatay iyadoo xor ah isla markaana ay xor u tahay cidda ay la yeelanayso iskaashi ganacsi iyo mid diblomaasiyadeed. wasiirka arrimaha dibaddu wuxuu intaas ku daray inay Somaliland la macaamilayso cid kasta oo xushmaysa madax bannaanida dalkiisa oo doonaysa inay xiriir ganacsi yeeshaan iyada oo aan lagu xireynin wax shuruuda. geesta kale wakaaladda wararka ee Reuters waxay soo xigatay wasiirka horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire oo sheegay in aanay Somaliland wax deyn lacageed ah weydiisan Taiwan. jamhuuriyadda Somaliland iyo Taiwan ayaa yeeshay cilaaqaad iyo xiriir saaxiibtinimo sanadkii 2020 waxaana isweydaarsadeen laba safaaradood oo ay ka kala furteen labada dal.